Waxaa jira dad badan oo ku mashquulsan nolosha dadka kale ayagoo ka xaajooda habdhaqanka iyo nolosha dadka kale oo aysan wax shaqo ah ku lahayn. Inaad dantaada raacato macnaheedu waa inaad diiradda saarto wax aad maamuli karto, iskana dayso wax aadan maamuli karin. Marka aad doonayso inaad qaaddo tallaabo horumar u leh naftaada, ama ay ku soo wajahdo xaalad adag oo taagan oo ay tahay inaad ka gudubto, ama aad walwal ka qabto wax soo socda, waa xilliyada ugu badan ee uu qofku raadiyo caawin, taasoo ah inuu helo dad garab taagan, waalid, walaal, saaxiib ama qof kale oo markaasi u arko inuu ka caawin karo wax u sahlaya maareynta arrimahaasi. Haddaba, waxaa muhiim ah inaad kala barato noocyada dadka ka hor inta aadan naftaada u horseedin dhibaato uga timaada dadka kale. Dadka caalamka ku nool waa laba nooc: kuwa ku mashquulsan arrimaha dadka kale marka arrin aad ka arkayso dhinaca wanaagsan, ayagu ay u muuqato oo keliya dhinacyadeeda xunxun. Ma jecla inay naftooda horumariyaan, taa beddelkeedana waxay ka gubtaan marka qofku horumar sameeyo. Xan iyo xaasidna waa shaqadooda. Iyo kuwa kale oo danahooda raacda, arrin walbana ka eega dhanka wanaagsan, ka hadalka iyo ku mashquulka nolosha dadka kale aad u neceb, kuwa oo aan raadin xumaanta iyo ceebaha dadka kale. Waxaan mar walba isku daynaa inaan maamulno waxyaalaha agagaarkeena ka dhacaya, sida inaan beddelno sida uu qofku noola dhaqmo, gaar ahaan waxa uu qofkaasi inaga aaminsan yahay. Waxaan ka rajaynaa inay sameeyaan waxyaalaha aan jecelnahay inaan samayno, taasoo ah mid ka baxsan waxyaalaha aan awoodno maamulkeeda. Marka ay arrimahaasi u dhici waayaan sidii aan rabnayna, niyad jab ayaan ka qaadnaa, annagoo u aragno in qaladna laga galay. Waana halka barnaamijka mawduucan uu ka soo gelayo sheekada oo ah inay muhiim tahay inaad danahaaga raacato iyo waxyaalaha naftaada anfacaya, adigoo wax kasta oo aadan awooddeeda lahaynna faraha ka qaadaya. Maxaa yeelay Eebbe waxa uu nagu waajibay wixii aan awoodno, waana tan Alle ku yiri Suuratulbaqara aayadda ugu dambaysa ee 286: Ilaahay nafna kuma waajibin wax ay awooddo maahane. Inaad dantaada raacato waa mid ka mid ah xaqiiqooyinka iyo howlaha ugu muhiimsan ee rasuulkeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uuna faray. Nebigu wuxuu yidhi, akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka ahi waxaa ka mid ah inuu isaga tago waxyaalaha aan macnaha u lahayn. Xadiiskan wuxuuna tusayaa mid ka mid ah mabaadi'da akhlaaqda wanaagsan iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay inuusan qofku waqtigiisa isaga lumin wax aanan qusayn. Inaad dantaada raacato waxaa ka mid ah inaad faraha ka qaaddo inaad dadka xugmiso. Dadka oo aad noloshooda xugmiso adigoo ku sifaynaya waxa ay kula tahay waa xaalad mugdi ah oo aan u wanaagsanayn naftaada, maxaa yeelay waxa ay kugu haynaysaa inaad mar walba ka fikirto nolosha dadka kale. In aad ka faallooto waxa qofku ku labisan yahay, sida qofkaasi u dhaqmayo, iyo sida howlihiisa adduunyo u maamulayo, cidda ay saamaynayso ma ahan qofka kale ee waa adiga. Waa adiga qofka noloshiisa ku luminaya saamayn uga timaada dadka kale noloshooda. Mar kasta oo aad qof kale sifo ka bixiso, tallaabada xigta waa inaad ku xamato qof kale ama dad kale, taasoo ah qodobka labaad ee muhiimka inaad ka fogaato diinteena naga mamnuucday. Dad badan oo waxaa jira aan awoodin inay sameeyaan waxyaalaha ay doonayaan ayagoo ka baqaya xanta dadka kale. Waxa ay ka walwalaan inay dadka kale hadalhayn doonaan. Sababta ay arrintaa uga walwalayaan waa inay iyagu jecel yihiin ka hadalka arrimaha dadka kale. Haddii aad ka dhex baxdo kuwa dadka xanta, waa hubaal in aad ka badbaadayso xanta, maxaa yeelay qofka wanaagsani xumaanta ma raadiyo. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaana inaad joojiso xanta iyo xumaanka sheega arrimaha dadka kale. Markaa ayaad adigana cabsi la'aan ka noqon doontaa waxa ay dadka kale kaa sheegi doonaan. Ilaah wuxuu naga mamnuucayaa inaan dadka kale arrimahooda ku mashquulno, sida inaan xamanno, xaasadno, ama aan xumaan ka fidinno. Alle waxa uu qur-aanku ku leeyahay suuratul Al-Xujuraat aayadda 22-aad, wuxuu Eebbe yidhi, kuwa Alle rumeeyow ka fogaada malaha ama afkaarta xun. Maxaa yeelay malaha ama wax qaldan oo aad aaminto waa dembi. Dadka ha isku dirina, midkiinna kan kale yuusan xaman. Dadka ha ku fuquuqin sida uu Eebbe u abuuray, isku day inaad ku aqbasho sida ay yihiin, maxaa yeelay qofna ma beddeli kartid. Ka fogow inaad faragashato arrimaha aan ku qusayn ee dadka kale, maxaa yeelay inaad faraha la gasho waxay kuu keeni kartaa dhibaato kugu soo kororta, iyadoo laga yaabo in markii horeba ay ku hor yaaleen kuwaagii oo kaaga baahnaa xal. Sidoo kale, dadka ma jeclo in arrimahooda hoose la qodqodo ilaa ay iyaga ku weydiistaan maahane. Ka fogow eedeynta dadka kale. Haddii aad qof ku eedeyn doonto wax uu ku qabtay, marka hore ha u dhiiban. Baro inaad qaadato mas'uuliyadda habfakarkaaga iyo ficiladaadaba. Marka aad dhacdo istaag oo is adkee, halkii aad marmarsiyo ka dhigan lahayd inaad dad kale eedayso. Caado ka dhigo inaad dadka u mahadceliso, keliya maahan markii sidii aad rabtay ay wax kugu qabtaan, ee xitaa markii ay u qabtaan si aadan rabin. Maxaa yeelay waa inaad ka eegtaa dhinaca wanaagsan ee ah
isku dayga in qofkaasi doonaya inuu ku caawiyo. Weligaa naftaada ha liidin, wixii kuu qabsoomi waaya u fahan in ay yihiin wax u baahan inaad dadaal iyo waqti geliso. Arrintan waxay sare u qaadi doontaa tayadaada iyo aragtidaada qofnimo. Gabagabadii, aan ku dadaalno inaan ku dhowaanno dadka toosan kana fogaano kuwa qalloocan, maxaa yeelay qofka afkaarta negatifka ama xunxun aaminsan wuxuu naftaada u saameyn doonaa si aadan dareemayn. Ka fogow inaad daawato muuqaalada ama akhriso qoraallada ay wadaagaan dadka afkaarta negatifka ama xunxun aaminsan, sida dadka raadiya xumaanta kuwa kale, qabiilo caaya, ka faallooda dhaqanka, dabeecadda iyo nolosha dadka kale, maxaa yeelay inaad laasimto ku xirnaanta dadkaasi waxay kaa dhigayaan inaad iyaga la mid noqoto, xitaa haddii ayaga ka hor aad ahayd qof wanaagsan. Daawadayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa mawduucan. Magacaygu waa Xasan Nuur, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.